waxaan u yeedhayaa imika nin munaasabadan meel dheer uga yimi taariikho kala duwan leh markii hore siyaasi madax bannaan ahaa mar siyaasadda ka baxay imika ku laabtay hadda musharaxa maayir doonaya qabyaaladda la dagaalama cabdikariin axmed mooge liibaan soo dhow bismillaahi raxmaani raxiim madaxdayda qaranka aad baan u salaamayaa midmideedii ma sheegi karo laakiin ixtiraamkayga oo dhan baa haysataan madaxdaydii qarankaa tihiin salaadiinteedaan salaamayaa jaamac ilaahay baa ku simay aabbahay saaxiibkii buu ahaa inankiisii oo gaboobay baa caawana xafladda kala soo qayb galay markaanu israacnu dadka ku adeer baanu ahay ayay ku idhahdeen isagaaba kaa weyn waxaan ku idhahdaa ciyaaruhu faa'iidadaasay leeyihiin si ay u qurux badnaataan sida jaamac karaacin ciyaaraha joogtay markaa waa fariin dhalinyarada ku socota suldaankayga suldaan cali isagana waan u ducaynayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa waxaan intaa ku darayaa weliba labada maalgashada labadaba inaanu isku nahay bahdii suugaanta oo runtii ah soomaalidu halka ku dhaatay walaalo ku tahay halkaa waxaa ka muuqda adeerka hadraawi oo ah qof abwaankii geeska africa intuu soomaali dhaafay gabayadiisa la turjumaya adduunku akhriyey sharaf bay idiin tahay in reer burco ahaan uu qof noocaasi idinka dhashay reer somalilandna sharaf bay u tahay in qof noocaasi ka dhashay soomaalina sharaf bay u tahay in qofka noocaas oo kaliya naga dhashay ilaahay caafimaad baan uga baryayaa taariikh wanaagsan buu ka tegayaa dad baa iska nool oo iska dhashay oo adduunka iska yimi oon waxna ku soo kordhin waxna kala tegin hadraawi maanta taariikh buu kaga tegayaa magac buu kaga tegayaa waynu noqon karnaa hadraawi oo kale halkan aan hagaajisano dadkana tawfiiqdooda iyo midnimadooda ha loo ilaaliyo dadkani midnimay u baahan yihiin walaalnimay u baahan yihiin wadajir bay u baahan yihiin kala tafaraaruq iyo kala abtirin iyo maaragtay qabiil uma baahna waxaan reer burco u sheegayaa markii ciyaaro gobolladu dhacayeen kooxda quraateen la fadhiistay kooxda quraateen u tegey gobolka quraateen kelmad u hibeeyey gobolka togdheer bay ahayd sababtuna waxay ahayd mudnaantay lahaayeen burco laga maarmi maayo togdheer laga maarmi maayo waa gobol hadduu isagu inoo wanaagsanaado waxa xun bay diidaan waxa wanaagsan bay jecel yihiin laakiin baryihii dambe xoogaa ficilkii baa laga yara qaaday intaas suldaanku sheegay barya gabeel baa la dhex maaragtay dhigay insha allahu tacaala intaasina way dhimanaysaa waa laga dhex qaadayaa midnimaynu ka shaqaynaynaa wanaag baynu ka shaqaynaynaa burco hagaagta somaliland hagaagtay weeyaan burco meesha quraataynu ka odhan karno wixii qaldan waxbaa qaldan waa meesha quraataynu ka odhan karno qofka geesiga intuu ka soo baxo idhaahdo waddadaynu haynaa waa waddo qaldan marka burco wanaagsanaata waa ummadda somaliland wanaagsanaatay qofna taa markaa maaragtay kama qabo wax dhibaataa waxaa kaloo idiin sheegaya walaalayaalow halkan dad qiimalaha ka hadlay dad sharaf labaa ka hadlay hadallo micnale oo macno weyn bay yidhaahdeen laakiin soomaalidu hadalka ma weelayso way huguntaa way hadashaa iyadoo hadal wanaagsan la leeyahay hadalladaa wanaagsan halkaa laga yidhi aynu weelayno aynu sidooda u qaadno anigu waxaan aaminsanay baan idiin sheegayaa waxaan meel walba ka idhaa baan idiin sheegayaa idinku somaliland baa leedihiin way tartamayaane soomaali hal magaalo isugu iman doontaa bal hadalkaygaa si fiican u dhegaysta soomaali hal magaalo ayay isugu iman doontaa waayo tiradeedaa yar magaaladaasi waxay noqonaysaa ma burca ma boorama ma hargeysa ma gaarisa ma muqdisho ma jigjiga aan u garan maayo laakiin waa magaalada rag hesha rag waxa garbaxa oo u shaqeeya hesha waa magaalada la qurxiyo la bilciyo waa magaalada adeegyada qofka bini'aadamka u baahan yahay laga helo waa magaalada martida lagu soo dhaweeyo waa magaalada ammaankeeda la sugo waa magaalada aynu kaga raysanayno baalashaha iyo kabaha boodhka leh waa magaalada dhirta leen cimiladeedu qurux badan tahay ee lagu nasan karo aan kulayl lahayn magaalada noocaasa cidda samaysatuma horta loo imanaya waa magaalada dhaqaalaha leh waa magaalada fursadda leh waa magaalada shaqo abuurka leh maadaama aynu dhalinyaro u badannahay waa magaalada leh meelaha shaydaanka la iskaga naaro sida halkan oo kale maqaaxi qurux badan oo lagu nasto oo lagu raaxaysto markaa magaalada tartankeeda galo oo geliya dee reer burcaa tihiin tartan baynu gelaynaa halkan gudoomiyihii ku hadlayay afka saxaafadda
ayaa si fiican u yidhi waxba yaynaan ku daalin magaaladeeba caasimadda labaada burcaynu caasimad ka dhigi karnaa magaalo la isugu yimaado ka dhigi karnaa magaalo lagu nasto ka dhigi karnaa anaguna insha allahu tacaala magaaladii yaradan ku koray baan isleeyahay haddii fursadda lagu siiyo aad u shaqaysid haddii fursadda la isiin waayana waxaan isleeyahay ilaahu midkaa wanaagsan keen ood la taliso oo waxaad sida aad u sheegto anu ma qof xun qof isaguna kursi doonaya ma ihi qof ku soo iimaan la ma ihi qof ku haliilaya ma ihi qof qabiil iyo tolaay la ma ihi waxaan isleeyahay xal baad haysaa lix mushkiladood Hargeysa albaad xallin kartaa caasimad baad ka dhigi kartaa Soomaali oo dhan baad isugu keeni kartaa baan isleeyahay haddii aniga noqon weydana ilaahay mid kale wanaagsan hayna siiyo ciyaaraha gobolada soo socda 4 sano ganaax ahayd waan codsanayaa in laga dul qaado gobolka Togdheer laakiin shuruudu waxa weeye ciyaaraha soo socda haddii burco xitaa xaar lagu seedheena dul qaadato inay iyaduna isu dul qaadato inay isjeclaato inay badiso inay koobka soo qaado intaasaan idinkana markaa shardi idinkaga dhigaya insha allahu tacaala mulkiilayaasha hudheelka Allah barakeeyo magaalada burcana magaalo wanaagsan oo dalxiiso inuu isugu nimaadno inuu ku nasano imika Hargeysa halkaasaan kaga baxaya igaraalahaw imika Hargeysa waxay noqotay magaalo aynu isugu wada nimi dabeetana ciriiri bay noqotay sixmad bay yeelatay kuleyl bay yeelatay lagu noolaan kari maayo lagu raaxaysan kari maayo way adag tahay xalku waxa weeye in dadka laga soo celiyo sida quraatay laga soo celinayo waxa weeye sida quraatay dadka laga soo celinayo waxa weeye aan ismaqalo sida quraatay dadka laga soo celinayo waxa weeye in magaalooyinka Soomaaliland ay mar wada dhaqaaqaan oo inta adeegta la Hargeysa burco laga helo marka jaamac iyo cali waxay sameeyeen wixii ugu wanaagsanaa dadkii burco u dhashay bay soo celinayaan nin kasto maal haystaan oo burco maal gashaasan dadka u soo celino Hargeysana marka ay u noqoto magaalo yar oo suxmadu ka yartahay dadkuna ka yaryahay berbera saasaan u filayaa laascaanood saasaan u rajeynayaa ceergaabo saasaan u rajeynayaa Soomaaliland dhammaan guul u rajeynayaa madaxdayda sharafta badanna waxaan ka codsanayaa inay hariya habeen noo shaqeeyaan dadaalka laba laabaan adduunku tartan buu galayaa lama ogola in fadhiil la noqdo in la iska fadhiyo golayaasha deegaanka ilaahay waxaan ka rajeynayaa kuwii hore haddii lagu eegay oo laga qaban waayay in kuwa soo socda lala xisaabtamo madaxweynuhuna uu kala diro hadaan shaqadeeda qabsan weyno anaguna waa ku ixtiraameynaa waayo qodobka kala dirku waa muhiim maaha in ummadda qofka lagu hayo 8 sano 9 sano ilaa uu magaalada baktigeeda cuno oo uu baabiyo marka madaxdayda waxaan ka codsanayaa anigu kuwa soo socdo ma la hadlaya qolada hore u joogta waqtigooda way dhameysteen hadaan xilkayga gudan weynahana la kala diro waa qodob dastuuriya sharciga oo gol ninkii fadhiida waxba qaban waaya iska tago insha Allah tacaala dad wax qabanaya oo fara badan Allah ina siiyo habeen dhaweyd oo saxaafadeeda meel xogaa hadal aan jeclayn idhi ayaan iyadana doonayaa inaan halkan burco kaga faa'iideysto oo gobolkii nabadda lagu dhisay waa meeshii isku saamaxnay habeen dhaweyd hadal baa iga dhacay anigoo dhowr qof u jeeda saxaafadeenu duruufo adag bay ku shaqeysaa dib bay qabaan waa la kareedaa waa la xidhaa marka habeen dhaweyd waan yara jeeray iyadana halkan maan xaal kaga bixinayaa xasan baa iga gaarsiinaya walaalkay oo runtii aan nin wariye qiimo badan sharaf badan barnaamijkiisa haladayg nina hadalka ugama tudo ama inaadeerkii aada ama walaalkii aada ama saaxiibkii ahaado su'aasha saxda ah buu weydiiyaa wariyahan doona wariye caynkaasa saxaafadana xaal la iga gaarsiiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdikariin Axmed Mooge waxaan rajaynayaa saxaafaduna in xaalmarintaasi ay qaadanayso sida horaba ay u sheegeen labada mulkiilaba waxay kamid yihiin bahda isboortiga marka dadka halkan ku qoran waxa u badan bahda ciyaaraha waxaan imika ku soo dhaweynayaa xogayaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee dhinaca ciyaaraha Yuusuf Nuux Tadhase oo magaalada Hargeysa uga yimi ka qaybgalka munaasabadan waa laacib hore oo gobolka Maroodijeex u ciyaari jiray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. salaadiinta golaha wasiirada